السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنالكيني مام شرف وإذله سودواada meel kastoo dunida zaafiyada ka joogtiin walaalahayga qaaliga ah maantana mawduuca idiihayo waxaa waaye walaalahayga qaaliga ah qiso xanuun badan oo aad iyo aad u dhibaato badan ayadana walaalahayga qaaliga ah waxaa dhacday cid dariskeena gabar inay hooyadeed suuqa u dirsato suuqi markay u dirsato hooyadii ay weyso gabadhii la raadiyey meel kasta laga raadiyey nag waa la afdubtay ilaan gabadhii say u raadinayso hooyadeed waa weysay walaalahayga qaaliga ah waa gabar 12 sano jir ee walaalahayga qaaliga ah waxaa dhacday in sidii loo raadinayo habeenkaas oo dhan waa la waayay subaxii waaga markuu bariyo waxaa la arkay walaalahayga qaaliga ah gabadhii oo dhimatay lagu soo tuuray gurigii cidda horteeda walaalahayga qaaliga ah subxaan allah gabar 12 jir ee ninka wax ka raadinayo ilaahay iimaanka ha gelsho walaalahayga qaaliga ah gabadhii waa ay kufsadeen intay kufsadeen ee ka bacdina si xun u dileen walaalahayga qaaliga ah gabadhii ka bacdina guriga hortiisa ay ku soo tuureen gabadhii meedkeeda walaalahayga qaaliga ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa wax aad iyo aad looga xumaado walaalahayga qaaliga ah marka waxaan idin sheegayaa in dhibaatadaas ay aad iyo aad u foolxun tahay walaalahayga qaaliga gabar 12 sano jirto la kufsaday ka bacdina dil loo geystay walaalahayga qaaliga ah laguna soo tuuray gurigooda hortooda walaalahayga qaaliga waa wax aad iyo aad looga xumaado subxaan allah walaalahayga qaaliga waxaan ka codsanayaa in loo naxariisto haweenka meel walba ay joogaan waa ay ku dhashay way kula dhalatay waa inay ku dhaxdaa walaalahayga qaaliga ma aha saas in loo galo gabadhii la farxumeeyey oo haddana dil loogu daro walaalahayga qaaliga hooyadii aad iyo aad ayay u murugaysan tahay aabihii kadaalika si xun ayay ayagana aad u naxsan yihiin meedkii gabadhoodii suuq u dirsatay raadinaysay ayadiioo meedoo la farxumeeyey guriga hortiisa lagu soo tuuro walaalahayga qaaliga iyadoo meed ah wax laga naxo laga argagax maysan ahayn walaalahayga qaaliga ah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi billahi taala aad iyo aad ayaan uga naxay ugana xumaaday aniga ahaanteeda walaalahayga qaaliga ma ahan dumarkeena in lagu ciyaaro ma ahan in gabdhaheena yaryarkaa soo baxaayo ubaxaa lagu ciyaaro ma ahan in la farxumeeyo ma ahan haweenka in la kubsado ma ahan in la dilo walaalahayga qaaliga ah waxaan iska baryayaa in habeenka loo naxariisto waxaan iska baryayaa in gabdhaha loo naxariisto meel kasta ay joogaan walaalahayga qaaliga ah ma ahan wax lagu ciyaari karo haweenkeena wax lagu ciyaaro ma ahan gabdhaheena ubaxa in ayagoo da-aadooda aada u yartaa inta la kufsado haddana dil loogu daro walaalahayga qaaliga ah miyaysan ahayn wax laga xumaado ama laga argagaxo walaalahayga qaaliga ah wallahi billahi taala reerkaas aada iyo aad ayay u naxsan yihiin waa wax laga xumaado walaalahayga qaaliga ah waxaan iska codsanayaa in aan la kufsan gabdhaha yaryarka ah oo sida loo dhaamo walaalahayga qaaliga ah qisadaas wallahi aad iyo aad ayaan uga qaraacmay ugana naxay markii aan arkay gabar yaroo sidaas loo galay hooyadeedna aad iyo aad ugu naxsan tahay wallahi billahi waa wax laga xumaado walaalahayga qaaliga ah yaan lagu ciyaarin gabdhaha kufsiga hana laga daayo walaalahayga qaaliga ah dilka hana laga daayo walaalahayga qaaliga ah waa wax laga xumaado ma ahan in anaga nala farxumeeyo ma ahan in nala dilo walaalahayga qaaliga ah waa walaasha gabar waa walaasha waa ay ku dhashay waa ay kula dhalatay ma ahan inaad saas u gashiin raggeena soomaaliyeed boqolkiiba 80 way ay fiican yihiin inta kalena ilaahay ayagana hanoo fiicneeyo insha allah waxaan ka codsanayaa ragga soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay u naxariistaan gabdhaha ay ka dhaafaan dhibaatada ma ahan in nala dhibaateeyo annaga ma ahan in nala farxumeeyo ma ahan in nala kufsado ma ahan in nala dilo walaalahayga qaaliga ah ilaahay ka baqa iyo rasuulkiisa sidaas ma fiicno gabadhaas yartaa hadda maxay galabsatay waa gabar 12 sano jirto haye hooyadeed adeeg u dirsatay suuqa kadibna la waayay kadibna dhibaatadaas ay la kulantay walaalahayga qaaliga waa wax laga xumaado subxaan allah alxamdulilah laa ilaha illa allah allahu akbar ilaahay rabbi raxmaan oo awlaadana hanuuni ilaahay rabbi raxmaan raggeena noo soo hanuuni ilaahay raggeena noo astur oo ilaahay ceebtooda astur oo ilaahay dhibaatada ay dumarka ku hayaan kuwii garta allah ka dhigo walaalahayga qaaliga ah ilaahay waxaan ka baryayaa dad is wanaagsan oo is wanaajiyo is walaalsado ilaahay inuu naga dhigo in ilaahay kan xumaatada iyo dhibka raadinayana ilaahay isagana soo hanuuniyo qalbigiisa ka saaro dhibkiyo waxyaalaha xunxun uu ku jiro walaalahayga qaaliga ah waxaas waa wax laga faano ma ahan wax lagu faano walaalahayga qaaliga ah in qof bili aadana si xun loo galo ama la dilo ama la kufsado
wax ilaahay raali ka yahay ma ahan, wax anaga aan raali ka nahayna ma aha walaalaheen qaaliga marka ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay kii dhibkaas geystana ilaahay baa ka jaasay doona insha Allah. hadduu dhuuntii hadduu isqariyay hadduu wuxuu u dilo waxa waa kale abiyo ku sheegin waa qof yaqaana isleeyahay. marka ilaahay waxaan ka baryayaa inta xunba ilaahay inuu soo hanuuniyo, ilaahay intii shar wadan ilaahay naga qabto walaalahayga qaaliga ma ahan in anaga aan lagu ciyaaro walaalahayga qaaliga dhibaato waaye midaas oo kale aad iyo aad looga naxo laga naxo wallahi billahi tallaah argagaxo. ilaahay rabbi raxmaan oo naga qabo shar iyo shaytaankaba oo ilaahay oo xafid rabbi raxmaan oo ilaahay walaadana xafid rabbi raxmaan oo ilaahay oo soo hanuuni annaga dhan ilaahay oo soo hanuuni intii shaytaan qaadan ilaahay shaytaankaas naga qabo rabbi raxmaan oo ilaahay ayagana soo hanuuni. subxaanallah ilaahay waxaan ka baryayaa familkaas gabadhaas sidaas looga galay sabr iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo bedel khayr qabana ayada uu siiyo. hooyadaas aad bay u dhibaato weyn bay la kulantay wallahi billahi gabar yar oo 12 sano jirtay suuq u darsatay ay ka bacdin la kulantay ayadii oo la farxumeeyay la dilayna lagu soo tuuray si xun loo dilay waa wax laga xishoodo walaalahayga qaaliga waxaas ma aha wax fiican. ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay soo hanuuniyo intii shaydaanka qaaday ilaahay rabbi raxmaan oo raggeena noo xafid ilaahu rabbi raxmaan ragga soo hanuuni ilaahu rabbi raxmaan oo midku ku fakarayo cunug 12 sano jiro inuu farxumeeyo haddana dil u geysto ilaahay rabbi raxmaan oo qulubtiisa nadiif uga dhigo ilaahu soo hanuuni. ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay shari shaydaanka naga qabto ilaahu awlaadna noo xafid ilaahay rabbi raxmaan oo waxaan ka baryaa ilaahay rabbi raxmaan nacafi dambigeen dambaadkeen bilaaw cafi rabbi raxmaan ilaahay dhibaatada naga qabo rabbi raxmaan والله wax laga xumaado walaalahayga qaaliga arintaas waa arin cajiib subxaanallah haddii aad ku cusubtahay channelkayga subscribe dheh like-na ii share garay comment-na ka bixi. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.